halkani waa barahan ku leenahay social media sida barteena YouTube-ka ee Dobiyo Media iyo M-Dobiyo kuna soo baahino dhacdooyinka dalkaada hooyo hadii ay siyaasadda, sportska, dhaqaalaha, tiknoolajiyada intaba waxaa ku kulmay M-Dobiyo iyo Dobiyo Media barahan ku leenahay social media. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. akhyaartu waxaan wada ku saaxiibnayo meel walba dunida kaga sugantihiin goor walba iyo xilli walba idin tahay waxaana wanaagsan ayaan ku leeyahay anigoo Mustafa Maxamed cali kala soo hadlo Dobiyo Media barteena YouTube-ka iyo sidoo kale barta kale ee Facebook-ka ee M-Dobiyo kuna soo baahiyo hadba dalkaada hooyo waxyaabaha ka jiro aan isleeyahay bulshada way xiiso gelinayaan. waxyaabaha idin wadanan waxaa ka mid ah Banka Federaalka Soomaaliya oo maalinta berrito ah codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha la horgeynayo in muddo 10 cisho loogu daro waqtiga oo golaha wasiirada ku soo dhisaya. maxay tahay sababta oo Xamza u soo dhisi laayahay golaha wasiirada oo waqti kale u sii dalbanayo? warbixin la xiriirtay xogaha ka dambeeyo ayaa idin soo baahin doona. sidoo kalena warbixinta aan idin haynana waxay tahay magaalada Qaahiro ee dalkaasi Masar waxaa gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga horkacay socdaalkaasi uu halkaasi ku tagay. warbixin la xiriirtana waa idin soo baahin doona. qodobada kalena waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland oo dalbaday madaxweynaha Dani iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ee maamulkaasi baarlamaanka in la horkeeno isla markaasina la xisaabtamo. warbixin la xiriirta waa idin soo gudbin doonaa. qodobadaasi iyo arrimo kale Soomaalida quseeyo balse adigana daawanaya deetaa markii kugu horeysay channelkeena dul imaada subscribe ee noo saarin fadlan calaamada gudubta subscribe taabo gambeelka furasi ama macaamiil joogto noqo. sidoo kale barta Facebook hadii follow-na soo dhiin fadlan follow-na soo dhig video walaag noo saar aragtidaadana commentiga noogu soo gudbi asxaabtaadana la sii wadaag ee u sii share garay. mahadsanid. intaasina haddii aan ka soo tagno aana sida hordhaca ku daawateen aan idiin soo baahinayna qodobadiini aan galno. xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalinta berrito ah kulankooda ay yeelan doonaan ayaa waxaa la rabaa in qorshe kale oo ku aadan sidii muddo 10 cisho dheeraad ah loogu dari lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muddada uu ku soo dhisayo golaha wasiirada. waxaana la sheegay in ra'iisul wasaare Xamza uu ka codsaday xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u marsiiyay afhayeenkooda Aadan Madoobe kadib kulan shalay ay yeesheen uu ka codsaday in 10 maalmood la siiyo muddada uu ku soo dhisayo xubnaha golaha wasiirada. waxaana ay ku eg tahay maanta isla markaasina ay tahay mid uu rabo in uu muddo kale helo sida ku qoran dastuurka waqtiga loo qabtay markuu dhammaado balse baarlamaanka la horgeyn doono maalinta berrito codsigaasi. sababaha oo Xamza ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u soo dhisi lahaa golaha wasiirada ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay mid ka dambayso in uu muddooyinkii dambe uu rabo qorshe ku aadan in uu xukuumadda soo dhisi doono ay noqoto mid dadka ka imaado bannaanka isla markaasina aanu ku jirin golaha sharci dejinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si markaasi ay noqoto xukuumad tayo leh oo lala xisaabtami karo. balse waxaa jiri kara ayaa la yiri in marka uu sidaas u soo dhiso ay kalsooni ay weyso maadaama dad badan oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ay yihiin kuwa daneynayo ka mid noqoshaha ku aadan golaha wasiirada. waxaana sidoo kale la sheegay in ay jirto caqabadaha kale oo muddada dheer qaadatay inay qayb ka tahay xubno kale oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya siyaasad ahaanna ku dhawaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay rabaan in ay noqdaan kuwa golaha wasiirada ka mid ah isla markaasina ay sidaasina haddii aysan iska waayaan liiskaasi ay noqoto in ay xukuumadda diidaan si looga baaraan dego ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wadaa qorshe ku aadan arrintaasi siduu u xalin lahaa. xubnaha baarlamaankana ay yihiin kuwa si gooni ah kulamo ugula yeelanayo fikradahana ka dhaadhicinayo. waxaana maalinta berrito ah kalfadhiga oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka ay yeelanayaan la horgeyn doona qorshahaasi ku aadan muddada 10 cishaha in lagu daro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. wafdi horkacaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gaaray dalkaasi Masar iyadoo garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladdaasi Masar. socdaalka madaxweynaha ee ku tagay dalkaasi Masar ayaa waxa uu ujeedkiisu yahay in uu kulan la qaato
madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifitaax Asiisi si looga wada hadlo sidii horumarka iyo xiriirka ka dhaxeeyo labada dal. waxaana intuu madaxweynaha dalkaasi ku sugan yahay kulamo la qaadan doona dhanka kale iyo waliba madaxda jaamacadda Carabta iyo sidoo kalena arrimaha kale oo kala hadli doono dhanka diblomaasiyadda iyo jaamacadda Carabta qorshaha kaga degsan Soomaaliya. dowladda Masar ayaa sidoo kale kulanka oo la qaadanayay dalkaasi Masar madaxweynaha Cabdifitaax Asiisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu sheegay in uu sidoo kalena dhinac uu ka yahay dhanka diblomaasiyadda oo la wanaajinayo iyo sidoo kalena la dagaalanka argagixisada iyo dib loo soo celiyo doorka dowladda Masar ee ka qaadan jirtay horumarinta dhanka waxbarashada ee dalka Soomaaliya. qoraal la soo dhigay barta Facebook ee Villa Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ay madaxweynaha intuu dalkaasi ku sugan yahay oo kulamo oo la qaadan doono jaaliyadda Soomaaliyeed iyo sidoo kalena xubnaha kale ee ganacsatada ee halkaasi ku sugan iyo ardayda. waxaana uu socdaalkaani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Masar oo ku tagay oo naqanaya kii 7 iyo markii la doortay oo ku tagay dawlado kala duwan. waxaana uu socdaalkaasi dadka siyaasadda dhalanriyo ee ku tilmaameen oo sameynaya madaxweynaha uu yahay mid diblomaasiyaddii xanafta yeelatay 5 sano la soo dhaafay lagu boogadhay rabo. maanta kulan ay yeesheen baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay kaga hadleen arrin la xiriirto sharciyada iyadoona sidoo kalena xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ay soo jeediyeen in baarlamaanka la horkeeno Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulkaasi iyo sidoo kalena ku-xigeenkiisa. xubnihii maanta baarlamaanka Puntland soo jeediyay in Dani iyo ku-xigeenkiisa ee maamulkaasi Puntland la horkeeno golaha wakiilada ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in muddooyinkii dambe ay soo isbixisay in la hareer maro shuruucda iyo waliba dastuurka u degsan maamulka Puntland isla markaasina ay noqoto mid dib u dhac iyo dhibaato ku keento shacabkii wakiilka ka yihiin waa sidii hadalku dhigeen. xubnaha baarlamaankii maanta ayaa waxay sidoo kale sheegeen in muhiimadda ay leedahay ee wakiilna ay ka yihiin shacabka ay tahay in la isla xisaabtamo madaxda maamulka Puntlandna oo ugu sarreeyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ay soo hor imaadaan baarlamaanka si wax looga weydiiyo arrimaha ee mas'uuliyadda ah. anigu marka waxaan oran lahaa waa ra'yigayga mudane gudoomiye mudanayaal dastuurka ilaaliyihiisa koowaad marka laga reebo baarlamaanka waa madaxweynaha. anigu waxaan aaminsanahay in loo yeero madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka arrintaa iyadaana sida hadda shacabku sheegeen xildhibaanaduna ka qaylinaya haddana xiritaankeeda ugu horreysay ay bilaabantay. waxaan aaminsanahay in loo yeero madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana laga weydiiyo dastuurka iyo qodobadii halka aan ka soo saarnay ku dhaqankooda inay mas'uuliyadooda leeyihiin. anigu arrinkaasaan soo jeedinayaa mudane gudoomiye waana dhiiri gelinaya waana aad baanan mataqaanaa runtii arrinta marin ay soo jeedisay ay ii damaqaday marka aan shacabkeena aragno dad badan oo loo hadlayn oo xildhibaano u hadlayn baa jira oo haddii la xukumo iyo haddii kaleba aan cid u qariimaysaa jirin. annaguna mas'uul waxaan ka nahay shacabka reer Puntland mudane gudoomiye waxaan aaminsanahay dadka dastuurka aynu ku dooranay labada u sarreysa waa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaan u yeerno. waxaan ognahay inay shaqeeyaan maxkamadda ay shaqeyso go'aano badan ay aga soo saari doonaan oo hadda ay sugayaan intuu kalfadhiga ka xirmayo oo warka xaqiiqada aan hayno. waxaa kaloo muuqata in waddanka dastuurkiisii la laalay oo meel lagu tuuray oo waddanka la rabo in xaalad adag la geliyo. annagaana waddanka u dhaaranay oo shacabkaas mas-uulka ah cidda lagala xisaabtamayo waxaan ku raacsanahay dhaashanaan ku raacsanahay in madaxweynaha loo yeero halkaa la soo fariisiyo. qodobka dhaashana aad baan u xoojinayaa waana hadalkii aan farta u taagay oo aan rabay inaan idhaahdo inaan madaxweynaha u yeerno isaga aan su'aal ka weydiinno hadduu yidhaahdo ma aqoonsanay go'aanka ka soo baxay golahana waa baab kale. sharciga ka sareysa ma laha sharciga waa in loo hoggaansadaa waddanka haddii la rabo inuu shaqeeyo dawladda haddii la rabo inay shaqeyso haddii la rabo waddankan inuu hore u socdo sharciga waa in la ixtiraamaa cid sharciga ka sareysa ma jirto. intaasi kadib ayaa waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland asigoona hadal ka jeediyay kulankii maanta ee xubnaha ka tirsan baarlamaanka Puntland ay ku soo jeediyeen in la horkeeno madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ee maamulkaasi Puntland ee Crash. waxaana uu yiri sida tan waxaan u baahannahay shaqo kasta oo aan marayno inaynu
habraaca u marno haddii wax jiraan siday yihiin ay u abbaaraan laba mudana waxay isku raaceen oo soo jeediyeen in madaxweynaha loo yeedho aniga tala ay muuqata weli waxaan ka talinayaa nasteexa ummadda iyo golaha iyo dalkan waa maqlaya aniga wararkaasi way soo gaadhigayeen laleeyahay garsoorayaashii uu madaxweynuhu soo magacaabay ee xasaanadda golaha ka waaya inay shaqaynayaan marayana waan saxayaaye horta goluhu xasaanad kamuu qaadin xasaanadba ma leh 15 ox ee sanadkii la soo dhaafay baa muddaxiloodkeedu shaqadu uu dhammaaday waxayna ahayd in madaxweynuhu soo weydiisto hadday sii shaqaynayaan codsi in muddaxileedka loo kordhiyo inta laga soo magacaabayo ma dhicintaasi madaxweynuhu uu soo magacaabay garsoorayaashii oo dib uu soo magacaabay goluhuna u soo weydiiyey in xasaanad la siiyo tahay akhyaartuuna daawanaysay intaasina ayaan ku soo gabagabeynaynaa qodobadeennii dhowrka ahayd aad ka daawanayseen Doobiya Media barteena YouTube-ka iyo Doobiya anigoo ah Muslim Maxamed Cali kuu soo jeedinaya waxayna leenahay intaa mar kale kulmi doono sidaasi iyo kulan kale oo saleh